kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gaaray magaalada Asmara ee dalka Eritrea iyadoo oo sidoo kale la shaaciyay ujeedka safarka madaxweynaha Soomaaliya xilli maanta kulan uu la qaadanayo dhigiisa wadankaasi Eritrea Afwerki ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo Djibouti ku booqday ciidamada loo tababarayo sugidda amniga Soomaaliya iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa wasiir Axmed Macallin Fiqi oo jawaab kulul ka bixiyay hadalkii ka soo baxay Sheekh Aadan Sunne oo ku jiro hogaamiyaasha kooxda Al-Shabaab qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray magaalada Asmara ee dalka Eritrea sida uu shaaciyay wasiirka warfaafinta Eritrea Yamane Meskel oo qoraal soo dhigay Twitterka Yamane Meskel ayaa sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa garoonka diyaaradaha Asmara uu ku soo dhaweeyay madaxweyne Afwerki waxaana uu intaasi ku daray in dalkaasi uu joogi doono muddo 4 maalmooda madaxtooyada Soomaaliya ayaa ujeedka safarkan ku sheegtay mid uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mudnaanta ku siinayo ciidamada Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi iyo waliba kor u qaadida doorka dalalka gobolka ay ku leeyihiin dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhigiisa dalka Eritrea mudane Afwerki la yeelan doona maanta wada xaajoodyo ku saabsan kor u qaadida xiriirka labada wadan iyo iskaashiga labada shacab ee walaalaha safarkan ayaa ah kii labaad ee madaxweynaha uu ku tagayo wadanka Eritrea tan iyo markii dib loo doortay 15kii May iyadoo safarkii koowaad uu dhacay 9kii Julaay 2022 Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligaasi ka qayb galay dhoolatus ay sameeyeen ciidamada Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan waxaana dawladda Eritrea uga mahad celiyay tababarka ciidamadan oo qayb ka qaadan doonaan xasilinta Soomaaliya sida qoraalka lagu sheegay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore u ballan qaaday in askarta Soomaaliyeed ee ku sugan Eritrea oo gaarayaan ilaa 5,000 uu si degdeg ah dalka ugu soo celin doono balse kama uusan dhabaynin ballanqaadkaasi ilaa iyo haatan toddobaadkii tagay qaar ka mid ah waalidiinta wiilashooda ay ku maqan yihiin wadanka Eritrea ayaa si weyn u cambaareeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waalidiinta oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ahmiyad gaar ah siinin soo celinta wiilashooda isla markaasina uusan ka dhabaynin ballanqaadkii uu sameeyay waalidiinta ee ahaa in ay soo celin doonto dawladda si degdeg ah caruurtaasi tababarka lagu qaaday wadanka Eritrea xilligii dawladdii mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadalkii ka soo baxay Sheekh Aadan Cabdiraxmaan Aadan Sunne oo khudbad ka jeediyay shir ay qabatay kooxda Al-Shabaab isagoo weerar qaawan ku qaaday dawladda federaalka Soomaaliya oo kordhisay dagaalka Al-Shabaab Fiqi ayaa shaaca ka qaaday in argagixiye uu yahay Sheekh Aadan Sunne isla markaasina uu doonayo inuu xasuuqo shacabka Soomaaliyeed wadaadkan argagixiyaha ah ee dhowr bilood ka hor u soo goostay inuu qayb ka qaato xasuuqa shacabka waxaa la yaab lahayd isagoo qalqaloocinayo hadallada qadafka ah ee uu ku hadlayay in uu rabo inuu maraamarsiyo uga dhigto xasuuqa shacabkeena ayuu yiri wasiir Fiqi sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray in wadaadka uu Al-Shabaab ku biiray xilli xaaladda ay ku xun tahay isla markaasina ay kordheen cadaadiska haatan lagu hayo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu Xuseen ujeedka Sheekh Aadan Sunne uu ugu biiray Al-Shabaab ay tahay inuu qabto hoggaanka kooxda maadaama uu xanuunsan yahay buu yiri hogaamiyaha Al-Shabaab Sheekh Axmed Cumar Abu Cubayda ugu dambeyntiina daawadayaal ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo ku guda jiro booqashada rasmiga ee dalka Djibouti uu ku joogo ayaa waxa uu booqday kuliyadda tababarka booliiska ee Idris Faarax Habane ee Djibouti ay ku tababarto ciidanka booliiska Soomaaliyeed Xamse Cabdi Barre oo xarunta tababarka ugu tagay ciidan iyo saraakiil booliis oo tababar ku qaadanayay iyo macallimiinta tababarka siinayaan
ayaa saraakiisha iyo ciidanka tababarka qaadanaya kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan fursaddan dahabiga ah ayna tababarka si wanaagsan u qaataan si cilmiga ay bartaan ay ugu isticmaalaan sugidda amniga Soomaaliya. Xamse Cabdi Barre ayaa dowladda Jabuuti uga mahadceliyay tababarka joogtada oo ciidamadeena booliiska ay siiyaan kuwaasi oo qayb ka ah dadaalada Jabuuti ay uga qayb qaadanayso xasilinta dalka iyo sare u qaadidda badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaana sidoo kale sheegay in kooxda Al-Shabaab muddo 4 bilood gudahooda laga saaray deegaano muhiim u ahaa oo ay ku ilma dhaleen. askarta lagu tababarayo halkan oo fursad helay oo aan hambalyeynay mar kale waxaan rabaa inaan u sheego maanta wadankeena aad rabtaan inaad ka shaqeysaan oo u shaqeysaan oo u soo tababarataan wuxuu ku jiraa marxalad xasaasi ah oo baahi badan leedin qabo. wadanku wuxuu ku jiraa dagaal waxaana curatay dib u xoreyn iyo in khawaarijta wadankan 15 sano dhibaatada fara badan kusoo haysay in fara badan oo innocent ah oo hooyooyin iyo caruur iyo odayaal iyo indheer garad intaba birmagayda dadkii la oran jiray soo baabi'iyay ayay maanta dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxay goosteen oo go'aan ku gaareen in ay iska xoreeyaan. haddii muddadaas dheer ciidanka Soomaaliyeed kaligiis uu furmaha ku jiray, haddii uusan heli jirin taageero institutions kale ee dawladda ah, haddii uusan heli jirin taageero moral iyo mid gacmeed oo uga yimaada shacabkooda, maanta tii way isbedeshay. dawlad kulligeed wada shaqeynaysa, hay-ad kasta oo ay tahay, iyo shacabkii oo dhammaantiis go'aan gaaray inuu dawladda ku garab istaago dib u xoreynta ayaad maanta haysataan. sidaa darteed intaas markii la isla helay iyo geesinimada lagu yaqaano askariga Soomaaliyeed, waad aragteen guulaha la gaaray ee degdeg ah. muddo aan ka badnayn 3 bilood ilaa 4 bilood ayaa deegaano aad u waaweyn oo ay ku ilma dhaleen muddo ayaa looga xoreeyay. haddana firxadkoodii runtii lagu daba jiraa. meelaha kale ee deegaanada kalena way ka bilaabanayaan. kuwa badan oo sharaf leh oo karaamo leh ayaa ku shahiiday oo saaxiibadiina. waxaan rajaynaynaa idinka oo soo tababartay oo physically usoo tababartay, mentally wax badan soo siyaadsaday iyo cilmi, moralina aad u dhisan oo guula ku taagan Soomaali iyo dal ku taagan u imaanaya inaad imaan doontaan oo aad qayb xoog la ka qaadan doontaan, maadaama la paramilitary aad tihiin oo laydin tababaray ama laydin tababarayo inaad police military aad noqotaan. waxaan rajaynaynaa inaad u timaadaan dalkiini oo guulaystay, isdabaraacis raba, idinkuna isdabaraaciskaasaad qayb ka noqonaysaan. qofkii maanta ka maqan oo aan daba iska raaciska khawaarijta aan ka qayb gelin dhaxal awowiisu ka qaday, waxaan hubaa in ay dhammaadeen nimankaas, wadankii ay deertan ay kasii dhammaanayaan. isdaba raaciska inaad kusoo gaadhaan aan rajaynayaa idinkoo moralkaas wata,
idinkoo karaamadaas wata idinkoo tababarkiina wata ayaa la idinku soo dhaweyn doonaa waddankiina haddii Ilaahay yiraahdo dadka Soomaaliyeedna way guuleysteen dawladdiina waa guuleysatay shacabkeena waa guuleysteen waa ka adkaanay waxa yararka ay aragteen oo dhacdhacaya oo dhibaatada weyn laakiin geysanaya oo ay wadaani waa sirqo iyo qofku markuu dhimanayo uu raftaa marka waa rafasho waxaad aragtaan markii looga adkaaday furimihii dagaalka markii ay baxsadeen ayay waxay ku soo dhuumanayaan caasimadaas waxay rabaan inay tusiyaan ay jawaab bixiyaan oo dhahan waan joognaa wali taas marka oo caasimada ayay booliiska shaqada ugu ballaaran oo sugaysa ay tahay waxaan rajaynaynaa oo aan shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadnay in aan soo gabagabayn doono qarax iyo dhib dambe oo ka dhaca magaalada Muqdisho dadka la isku haleynaayo dadka aan magacooda wax ku soo ballan qaadnay oo ku shaqeynayna waa booliiska idinkoo sidaas rumaysan oo mas'uuliyadda xambaarsan ayaad soo noqonaysaan haddii Ilaahay yiraahdo nimankaas way tageen laakiin waxa firxadka ka soo haray ayaan rajaynaynaa inaad ka qayb qaadataan waxaan rajaynaynaa inaad ka faa'iideysaan tababarkan waxaad tihiin safiiro dadka Soomaaliyeed ayaad halkan u joogtaan waxaan rabnaa inaad muujisaan akhlaaq wanaagsan muslimnimo waxaan rajaynayaa inaad muujisaan isdhageysi iyo ismaqal waxaan rajaynayaa in ammaan iyo dardaaran wanaagsan oo ay idinka bixiyaan maalintaad qalin jabinaysaan inay saraakiishiinu ay idinkaga bixiyaan haddii Ilaahay yiraahdo oo idinku ammaanan oo halkan ku ammaanan aad dib ugu noqotaan dalkiina waxaan idin leeyahay guuleysta guul baan idin rajaynaynaa madaxdii iyo shacabkii iyo dawladda Soomaaliyeed oo dhanna salaam baan idinka wadnaa guul baan idin rajaynayaa waddankeena oo nabadaan rajaynaynaa inagoo barwaaqaan rajaynaynaa guul baan leeyahay reer Djibouti guul baan leeyahay dadka Soomaaliyeed guul baan leeyahay dawladda Talyaaniga iyo guud ahaan caalamkaba aad baad mahadsantihiin guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo